maantu ay taariikhdu tahay 3 bisha saddexaad sanadka 2019 war-saxaafadeed uu soo saaray gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa waxa uu ku sheegay warbixin uu kaga warramayo dhaqaalaha Soomaaliland ee waqtigan ugu horeyna war-saxaafadeedkan ayaa waxa lagu sheegay in heerka isku beddelka sarifka dollarka iyo shilinka Soomaaliland uu bishii February ee sanadkan 2019 dhamaadkeedu uu ahaa 950 shilin halka bishii February ee sanadkii la soo dhaafay ee 2018 uu ahaa 10700 shilin taasina ay muujinayso kor u kac ku yimid shilinka Soomaaliland boqolkiiba 15 taasi oo anfacaysa bulshada mushaaraadka ku qaata shilinka Soomaaliland waxana warbixintani uu banku soo saaray ay ku xuseen sababaha keenay kor u kaca shilinka Soomaaliland banka dhexe oo xakameeyay xaddiga lacagta suuqa galaysa taasina ay sababtay inay banka ku soo xarooto lacag badan oo suuqa wareegaysay banka dhexe oo maareeyay suuqa sarifka lacagaha soona saaray sixir dhexe oo sariflayaashu ay isticmaalayaan waxaana sariflaha kor u dhaafaa sixirka dhexe ee banku soo saaray boqolkiiba 2 lagala noqon doona ruqsadda uu ku hawlgalo dawladda dhexe oo joojisay kharashaadkii aan daruuriga ahayn marka laga reebo mashaariicda horumarineed ee qaranka inuu kor u kacay shilinka Soomaaliland oo uu ka qayb qaatay go'aankii xukuumaddu ay ku joojisay in la isku diro wax ka yar $100 waxa kale oo warbixinta lagu sheegay in kor u kaca shilinka Soomaaliland ay qayb ka qaadatay shixnadaha ka soo degdegada Berbera oo warbixinta lagu sheegay inay kor u kaceen waxa kale oo warbixintana ay tibaaxaysaa in boqolkiiba 7.7 uu hoos u dhacay sixir bararkii dalka ka jiray halka sixir bararka ugu sareeyay ee Soomaaliland soo maray uu gaaray boqolkiiba 19.1 bishii February ee sanadkii la soo dhaafay 2018 halka uu markii dambe bishii January ee sanadka 2019 uu gaaray 7.7 oo hoos u dhacaasi ballaaran laga dareemay suuqyada Soomaaliland waxa kale oo ay warbixintani tibaaxday kor u kaca ku yimid qiimaha sarifka lacagta shilinka Soomaaliland oo gaadhay 950 shilin haddana ganacsatada sarifku waxay halka dollar ku sarifaan 10,000 oo shilin taasina waxay ka hor imanaysaa siyaasadda bangiga dhexe isla markaasina ay tahay mid aan xalaal ahayn waxana uu banku bulshada ku boorinayaa inay u turaan bulshada bangiga dhexe isagoo ixtiraamaya bulshada dakhligooda ku hela dollarka iyo qurba joogta dalka maal gashanaysa waxa uu ogeysiinayaa in halka dollar uu yahay 8,500 oo shilin waxa kale oo warbixintani lagu sheegay haddii sarif fararku uu gaadho eber taasi ay keenayso in dalku uu galo xaalad dhaqaale oo keenaysa busaarad iyo shaqo la'aan isla markaasina ganacsigu uu yaraanayo geesta kalena bangiga dhexe waxa uu sheegay in yoolkiisu uu yahay in sixir bararka la gaarsiiyo 5.7 boqolkiiba ugu dambeynna warbixintan uu soo saaray gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa waxa uu ku sheegay in uu rajaynayo in mashaariicda horumarineed ee dalka ka fuli doonta ee ay ka mid yihiin Berbera corridor iyo sidoo kale ballaarinta dekada Berbera oo qiimahoodu u dhan yahay 560 milyan oo dollarka Mareykanka ay keeni doonto shaqo abuur isla markaasina inaanu sixir bararku ka hoos marin boqolkiiba 5 Siciid Aadan Jaamac telefishinka on cable Hargeysa